وأمر كله يتحنيني سوى سكورتيجا وعن صار ما الناس تاب قرنتي فيرتشوال لابكا ما أنتو حقوق قوان دونا شقديني وهريسي تاسيو هن إنه هقرينه متسبليتبل سيدين هروسة المبنى متسبليتبل وماشين لكن جاي متفنربل أما متشالسن سلو سمية برايت كيسكا أوكي haddaba markaa soo furato saddexda machine ee muuqaalkeena maanta ku isticmaali doonaa kuwaasoo kala ah Kali Linux, pfSense iyo Metasploitable. waxaad hubinaysaa in Metasploitable uu yahay mid ku jira network-geeni laga yaabo inuu ka baxsan yahay taasna ay keento in command-isku inoo shaqayn waayaan. marka intaad shaqada bilaabin soo hubi IP address-ka Metasploitable. okay waa inoo saxan yahay IP address-ku وانا 192.168.20.100 اوكي صوبل هذا Kali Linux ونفور تيرمينالك استعمال nmap سووا هشو حق Metasploitable adigoo adeegsanaya IP address-kii soo helnay intaas kadib soo kici Metasploit oo ah toolkan hore soo baranay ee lagu heli jiray vulnerabilities-ka ama ku daleelada machines-ka search ده vs ftpd aynu yar dul istaagno shaqada command-kan Fair Secure File Transfer Protocol waa FTP server kaasoo lagu yaqaano inuu yahay mid ammaan balse versionkiisii 2.3.4 ayaa laga helay vulnerability awood inoo sii kara inaynu systemkaasi dhex geli karno marka vulnerability-gaas aynu ka faa'iidaysanaa waan isticmaalaynaa search ده marka okay waa inoo soo baxay vulnerability-ga aan rabnay inaan isticmaalno kadibna use ده hadda soo koob karaysana waa okay dad qortana waa okay kadibna geli IP address-ka lagu fulinayo shaqada IP address-kaasina waa Metasploitable ee ahaa 192.168.20.100 intaynaan rangarayn aynu hubino IP address-ka inoo sal garaysan show options qor okay waa haddaba aynu rangarayno done waxaynu ku guda jirnaa mashiinkii Metasploitable hadda saad hubiso waxaad samayn kartaa labadan hab mid ka mid ah waxaad marka hore qori kartaa command-ka whoami haddii aad ku saaro root taa macnaheedu waa inaad mashiinkaas ku guda jirto shilkiisii sidoo kale waxaad ku qori kartaa if config halkan waxaan ka aragnaa IP address-kii Metasploitable taasna inoo sheegaysaa in mashiinkaasi ku guda jirnaada waan isticmaalayno shilkiisii okay intaas kadib waxaan sameynaa persistent backdoor aynu mar dambe kasoo geli karno mashiinkan waxaynu isticmaalaynaa netcat oo ah tool networking kaasi oo loo isticmaalo shaqooyin badan ay ka mid yihiin port scanning lagu sameeyo in lagu dhageysto connections-ka marka qaar waxaa loo isticmaalaa FTP ahaan isagoo loo adeegsan karo in files la iskugu diri karo machines kala duwan ee ku jira network-ga iyo ugu dambeyn shaqada aynu haatan u isticmaalayno taasi oo ah inaynu ku samaysano backdoor kuwaasi waa qaar ka mid ah shaqooyinka netcat haddaba toolka netcat command-iskiisa waxaa loo soo gaabiyaa nc halkan inoogu bedel IP address-ka isticmaali doona backdoor-ka IP address-kaasina waa mashiinkeena Kali Linux oo IP address-kiisa waxuu ahaa 192.168.20.20 okay haddaba aynu bilowna dhageysiga connections-ka Metasploitable waxaadna qortaa nc lvb waxaynu inoo saarayaa inuu active yahay okay labadan commands aynu ku darno kan hore waxaa xogta netcat aynu ka soo helno inoogu shubaya filekaas magaciisu yahay extra filtered data hadda doontidna magac kale waad bixsan kartaa command-ka labaadna waxaynu ku helaynaa xogta user-ka laakiin kuma heli karno password-ka si aad password-ka u hesho command-is kale aynu adeegsan doonaa oo mar kale aynu hawshaasi qaban doonaa balse iminka xogtaasi una aynu soo helno ugu dambeyn aynu tirtirno dhaqdhaqaaqaynan ka samaynay systemkaasi haddii aadan dhaqdhaqaaqaagi masixin markiiba in systemkaas la soo galay waa la garan karaa oo waxaa laga ogaanaya history-ga sidaasna waxaa ku fashilmaya project-kaagii markaas aynu masaxnay history-ga waayo waxaan haysanaa persistent backdoor aynu kasoo geli karno mar kale waxaadna qortaa command-kan sidoo kale tirtir dhaqaaqyada system login-ka okay way noo dhan tahay hawshaas imika kadib iska soo xidh oo reboot qor muuqaaladeena xiga aynu hore ugu sii wadi doonaa dhegeysiga Metasploitable iyo shaqooyin kale oo aan ku qaban doono qalkeena maanta intaas ayuu ka egyahay ilaawina muuqaalka la saarto lana wadaagto asxaabtaada mahadsanid